daawadayaal caweysin wanaagsan ayaan idin leenahay meel walbood joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkeennii kaftanka isboortiska oo sabti walba hadahan oo kale aad ka daawataan tv-ga caalamiga ah universal barnaamijkana waxaa idin qaada dhigaya anigoo cabduqaadir boos ah ka bogasho wacan amrada qarsoon ayaa qabatay diyashaha aqalka sare Muuse Suudi Yalaxow oo hadala kulkulul adeegsanaya kulan ka tirsan horyaalka dalkeena oo kooxdiisa sanadka ku ciyaaraysa gigida Muqdisho Stadium FIFA ayaa baaraysa in oday Muuse uu kubadda ku jiita meel ka baxsan garoonka isagoo ka dhaga furaystay amarka garsooraha oo ahaa inuu istaajiyo kubadda raaliga hadda ajandayna qoranay ajandaha waa dhamaaday sidoo kale garabkii hore ee Kaaraan ayaa istaag u diiday laacib ka tirsan isla kooxdiisa oo codsaday inuu aado suuliga qabiirkan da'da ah ayaa sheegay in kooxdiisa Hirshabeelle qaranka ku leedahay laba xubin oo mid wax laga weydiinayo rabshadaha kubadda cagta halka midka kalena uu sharaxayo sida wax u dhaceen goboladan waxa la siiyay wasiirka qaraxyada lagu qabsado iyo halka qaraxyada sheego hogaamiyihii kooxda hanti dhowrka qaranka Nuur Faarax Jimcaale ayaa iska laalay go'aan garsooraha qaranka uu uga saarayo xulka kuna raacay tababare Farmaajo konton jirka reer Galmudug ayaa ku doodaya waxa iska galay mashaqar rabbaani ah iyo booskiisa xulka laacibkan ayaana aaminsan in macalin Jawaari iyo kooxdiisa baarlamaanku yihiin cidda kaliya ee awoodda inay ka saarto garoonka kabtankan mayalka adag ayaa warqad furan u diray kooxda macalin Jawaari bal in ay dib u daawadaan qaladaadka macalin Farmaajo xilli gawaari sportis oo galbinaysa qof rayd ah ku jireen agagaarka xirada tababarka Villa Soomaaliya maalqabeen u dhashay koonfurta Gaalkacyo ayaa la wareegay kooxda Galmudug ee xagaagan ku jirta kaalinta shanaad ee liiska kala sareynta tujaarkan da'da ah ayaa ballan qaaday in kooxda uu gelinayo qarashaad waali ah si loo helo xidiga u babac dhigi kara kulamada derbi mudug iyo kuwa horyaalka dalka duqan aan xidigiisa sida wacan u kala saari karin ayaa aaminsan in doolarka uu ku kala furfuri doono tusbaxa daadsan Gurceel ilaa iyo Xiraale xidigta reer USA farxiyo kabayare iyo laacibka heesta bilada qaaradda Yurub Guuleed Simba ayaa isku aaday tartanka Olombikada caalamiga ah ee bishiiba mar lagu martigeliyo gigida Facebook because ciyaartu aad u ciyaaraysay ciyaartu way kula tagtay alaab yar waxay kula gashay alaabti anaga camalmaan laacibada reer USA ayaa markii hore soo xiratay maaliyadda cabdigood iyadoo ciyaarta daayarkaasi ku tilmaamtay mid haweenka waraysi ay siisay Sky Sports ayay hadaladeeda ku sheegtay kuwa ay uga cadgoosanayso qaladaad laga galay magaceeda magacayga lagu dhaleecaynayo Guuleed Simba 6 bilood oo iga caynaayo 6 bilood oo social media iga caynaayo sidoo kale laacibadan heerka caalami ayaa sheegtay in ay iska ilowday darbooyinka goolasha ka fog laakiin taas bedelkeeda si xirfadeysan ay ku dhalinayso goosha wixii haatan ka dambeeya awal daacadana waxaan dhigi jiray hebel waa isku dhacnay hebel saan u yaal hadda xariifnimaan bartay in daaragti xataa dadka u garaaca soo markinina laakiin xidiga Simba ayaa sheegay in haddii ciyaartiisu shabahdo tan kaba yare diiqa u jiran laacibadaasna uu shabaha kiisa xidiga Cabdicasiis Iskalaaji ayaa ugu dambeyn si xor ah ugu biiray horyaalka dabacsan ee Canada laacibkan loo haysto dambiye dhowr ah ayaa qaranka Trump u arkaan mid aan u qalmin ka sii ciyaarista horyaalka ugu weyn caalamka ee Mareykanka reer Toronto ayaa isweydiinaya sababta xidigan ay uga soo hartay laacibada jooga dheer oo Hodan Cabdiraxmaan taasoo iyana loo haysto soo gelinta maadooyinka kobciya jirka ciyaaryahanka xilliyada kubadda saliga xidiga ka tirsan kooxdii Ismahurto ayaa beeca horta ah ugu soo biiray kooxdii ay ku soo barbaareen ee qoto laacibintan ayaa laga saxiixi doonaa heshiis 6 bil ah oo ay u dheer tahay gunooyin ku xirnaan doona qaab ciyaareedkooda qaar ka mid ah laacibintan oo ku faraxsan kooxda ayaa ballan qaaday inay xifdin doonaan
shahaado sharafeedka ay ka helaan kooxdan ka diiwaan gashan horyaalka dalka Ingiriiska. markana xubinteennii wargeysyada iyo waxa ay qoreen. laacibada Raxmad Roos ayaa ilaa iyo haatan la amakaagsan miisaan ay kortay Isniintii oo ku yiri fadlan hal u soo kora taasoo ah wax ku cusub mashiinka. Universal TV ayaad wali inaga daawanaysaan. xidiga dalmaryare ayaa sanadan gudaheeda galay 4 jeer oo honeymoon ah. fanaan ayaan ahay ayaa ah kalmadda kaliya ee fududeynaysa in food dheerahaasi u gacan galaan. xidigaha gabdhaha ee horta uga tagay qoyskooda xagaagan waa boga koowaad ee jariirada aroos aduu ku dhiba.